اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. waxaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland dawladda iyo shacabka uga tacsiyeenaa geerida garaadkeena aan jeclayn garaad Cabdullaahi Cali Ciid oo ahaa runtii shakhsi nagu weyn ahaa garaad runtii dawli ah oo dhigaal ummadda Soomaaliyeed taariikhdeedii ah hayab u ahaa runtii wuxuu ahaa niman wax badan kaga dayanno wax badan oo taariikh aan ka qaadanno. ilaahay baa oofsaday oo naga jeclaaday. ilaahay ha u naxariisto. guud ahaan qoyskii iyo qaraabadii si gaar ah ayaan uga tacsiyeenaa. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ilaahay u naxariisto garaad Cabdullaahi Cali Ciid. maanta waxaan halkan u joognaa aaska qaran ee loo sameeyay garaad Cabdullaahi Cali Ciid oo ka mid ahaa ismada Soomaaliyeed khaasatan ismada reer Puntland. oday Soomaaliyeed oo soo shaqeeyay runtii xilal kala duwan ka soo qabtay dawladdii Soomaaliya ilaa iyo 60kii intii calanka la qaatay. 30kii sano ugu dambeeyayna ahaa isin waxa aan shacabka reer Puntland oo dhan aan leeyahay Ilaahay samiriye mana ka siiyo. anigoo ku hadlaya afka dawladda Puntland waxaan dhambaal tacsiye la wadaagayaa qoyskii iyo eheladii uu ka tagay ka geeriyooday iyo gaar ahaan Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan oo ay ilmaabti ahaayeen garaadka iyo dhammaan qoyska ehelada inta kale oo dhan. sidoo kale waxa aan dhambaal tacsiye ka sidaa isagana madaxweynaha dawladda Puntland oo yiri iga gaarsiisaaka tacsi qoyskii iyo qaraabadii iyo eheladii ka tagay iyo suldaanka iyo dhammaan shacabka iyo ismada reer Puntland oo dhan. Cabdullaahi Cali Ciid nin odaya oo taariikhyahana oo runtii wanaagsan buu ahaa. ilaahay u naxariisto. oday reer Puntland oo Puntlandnimadu ay ku weyn tahay dalkan iyo dalkan la jecel badan kale tala qabeena buu ahaa. waxaan xasuustaa ayaamihii uu sii tagay runtii talooyin badan oo uu igula sii dardaarmay. runtii wuxuu ahaa shakhsi aan aad u jecelahay garaadku. ilaahay u naxariisto. dhammaanteena samiriye imaan Allah inaga siiyo. ilaahay waxaan uga rajaynayaa ubadkiisii iyo dadkiisii eheladii uu ka tagayna in ilaahay samiriye imaan ka siiyo isagana ilaahay meel wanaagsan u geeyo. ilaahay u naxariisto. walaalayaal waxaan ku codsanayaa inaan cafinno walaalkeen maanta uu tagay inaan cafinno haddii ay jirto cid gaar ah oo ay wax gaar uga dhaxeeyeen. anagu abtibaan ahaa in abtiday baa dhashay familkiisii baan nahay inaan nala soo wadaagtaan insha Allah billahi kariim. idinkuna dhammaan waxaan ku codsanaynaa cafidaan anaguna waa cafinay dhammaanteed ilaahay u naxariisto.